بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أدبان دمانتين المدرية دي السلام يا سلام كبعد يوحن دوني أنا كهاد له ما أنت أرنت سامي قيبسك اللي وسع العلين أيوه اللي قدك أيوه وح صح أرنتاس وحلا قهد ليوي قديسة إن gobolka awdal ama magaalada boorame nimanka kaga hadlay waxay ahaayeen niman wada macruuf ah oo xilal ka soo qabtay dalka oo la yaqaano oo wasiirro iyo xilal kala duwan soo qabtay nimankaasi shalay bay xilal wada hayeen ayagoo sidaa maanta ay u hadlayaan mooye si kale u hadlaya hadalladoodii oo maqal iyo muuqaal waa wada hayaa waan wada dhegeysto waan qoslay markaa aan magaranaysa arkay saxna maaha kelmadda saami qaybsi iyo sida wax lagu doonayo ama niman wax ku doonaya ay u hadlaan ama u dhaqmaan inta badan waxa u dhaqma sidaa oo u hadla dad ka soo jeeda boorame dad sheegta garxajis oo iyagana macruuf oo la yaqaano iyo qaar sheegta harti saddexdaa qole ee sheegataaba waa kooxo siyaasadda ee lagaga guulaystay oo miciin biday saami qaybsi iyo qabiil ay dabada geliyaan marka lagaga adkaado siyaasadda haddaan dhex galo gobolka awdal ragga ka hadlayey waxaynu ogeyn nidaamka horta waxaynu ogeyn waynu ka soo gudubnay nidaamka haddii alla kuu roon yahay 4.5ka la odhan jiray ama qabaa'ilka wax lagu qaybsan jiray waynu ka soo gudubno xisbiyo ayaynu furannay ururaynu ku hor furannay ururadii waa la furo nin walba kaa doonto fura baa layidhi qabiilkaa doonto ahaw waxaa doonto ahaw awooddaa doonto yeelo beratan baa la galay magaalo dhan baa beratantay ururadiis waxay noo soo baxay 3 xisbi wuxuu ahaa ucid iyo kulmiye iyo udub 3dii ugu horreeyey ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye aasaasi xisbiga udub markii uu sameeyey wax yar ka bacdi uu geeriyooday oo maxamed xaaji ibraahim cigaal buu ahaa ilaahay naxariista ka waraabiyey waxaa dumaale xisbigii daahir yaale ka ahayn inta badanna ciddaynu ka maqallo saami qaybsi ee ugu badani waxa weeyaan reer boorame daahir yaale cidduu ahaa waa la yaqaane nin samaroona buu ahaa nin malkadoora buu ahaa nin makaahiil ah buu ahaa waa la og yahay wuxuu tartan la galay doorasho la galay markii ugu horreysayba axmed maxamed shiiraanyo oo ragga xilligaa nool ee isaaq uguna aynu weynaa siyaasaddan aan idinkaga horrayn halgankii aanu soo gallay iyo tacabkii dalkan loo soo galayna ku suntanaa oo isagoo madax ka ah dowladdii hore ee kacaanka oo raaxo ku jiro oo madaxnimo ay halkaa u taallo ka soo cararay oo door biday inuu ficil geeyey halkaa ogeydeen ee darxumadu taallay dacasku axmed buu la tartamay wuu ka guulaystay cidda codka siinaysayna ee aqlabiyadda ahaydna reeshaq isxaaq bay ahaayeen qabiil ugumay codaynayn daahir yaale waxay uga codaynayeen xisbinimo iyo nidaamka xisbiyada mar labaadkii doorashadii labaadna waa lagaga guulaystay waa wax iska caadiyo siduu shalay u guulaystay maalintii dambena looga guulaystay nambar badanna wuu helay maalintaa lafteeda muu helay nambar yar nambar aada u badan ayuu helay haddii uu dib u soo abdheed garayn lahaa xisbigiisuu dib u hagaajisan lahaana waxaan filayaa inaan idinkaga guulaysto xisbigii ugu ballaadhnaa ee somalilan oo dhan matalayey ee qabiil weliba ku jiray ee qabiil walba codka ka helay ayuu xisbiga udub ahaa xisbi la qiimo ahi inamuu soo marin daahir maalintii laga guulaystay iyo reerkooduba xisbigii sida adag lagu helay ee jaaliska ugu qalasnaaya heleen ayagaa dayacay talaxubay ku dayaceen daahirna waa kiis ka dhoofay ee waddanka ka dhoofay jaaniskii gadabuursi heleen ama samaroon heleen fursad dahaba buu ahaa oo ay ku guulaysteen oo ay 3 meeloodoo meel ahaan ku maamulayeen intii somalilan jirtay oo awooddu gacantooda ugu jirtay
ayuuhaa fursad dahabiya bay ahayd markan ay dhaceenna way heli karayeen inay dib boodhka uga tumaan ay dib u guulaystaan somalilan waxaa ka taagan nidaamka xisbiyada jaanis bay samaroon u heshay inay nidaamka xisbiyada hoggaamiyaan oo ka ugu weyn hoggaamiyaan wayse garan waayeen oo way dayaaceen war marka tartan la galayo xisbiga la noqdo ninka xisbigiisii wadi kari waayey ee markuu dhacayna mid kale oo ururna furan kari waayey ee ragga la baratabi kari waayey ee wasiir ah ee midna ee shalay wasiirka ahaa markuu maanta wasiirnimadii waayey bannaanka uu fadhiisto ee xisbigii uu galayna dhaco intuu doorasho galo uu dhaco sax maaha inuu maanta isagoo weji kale ku hadlaaya oo sida carruurta u hadlaayo inuu dadka soo hor istaago oo uu siyaasadda waddanka ka socota ee xisbiyada ah dib ugu celiya qabyaaladii 4.5 wax laga dhegaysanaya ma laga yeelaya maaha wax saxana maaha ninka xisbigiisii ragga meesha ka hadlayay xisbiyey ka wada tirsan yihiin asxaabtay ku jiraan waxay xisbi ku waayeen bay doonayaan inay ku raadiyaan haddii alla kuu roon yahay qabiil kuna heli maayaan dalkana ku dib ugu ridi kari maayaan dalku xisbiyuu gaadho uu ka soo gudbay marxalkii qabiilka ninka xisbigii ka aamini waayey qabiilka aaminayaana igawallu meel gaadhay inta imika dhufayska ka dhigatay waa inta uu raadka soo galay xamar dhufayska keliya xamar ama dagaalka keliya hubka keliya lagula dagaalamasa xamarna waxa weeyaan inay dadka ku kiciso saamiyo inagu saamiyo waynu ka soo gudubnay asxaab baynu nahay ururada haddana la furayaa ninka ciil u hayee urur iyo xisbi wuu furan kartaa taagemeela dhigtaba wuu furan karaa xilli buu leeyahy kuwa joogu wax ku darsan karaa ayuu beddeli karaa oo uu yeelan karaa hadduu kartideeda yeesho war ninkasti ku saaqiday siyaasaddii ee baratankii lagaga dheereeyeyow ilaahay ka boqo dadka ka daa dhibaatada oo ka baar shacraf la soo gashanin waxaad garanaysaa waanu kula garanaynaa nidaamka waddanka yaallo waa la og yahay ama garxajiisa ha oo sheego garxajis ama beelaha darafyada sheego waxaad wax ku doonaysaa waa qalad dariiqa saxda amar beelaha darafyada cuduubadiidan xisbiyada qaar babay hogaaminayaan wanagaa sheegnay iminkay furan karaan kuwa galaga garxajka sheegta xisbiyada ugu waaweyn bay leeyihiin war ha laga daayay dalka dibudhaca iyo beenta war dadka makasta la ururinayo dhallinyarada la ururinayo dumarka waxaa dhagaan lagu ridayo ha laga daayo cudurrada la beerayo beenta ah ayaanu leenahay haddaan dib ugu noqdo saamiga la sheegayo anugu gobolka hargeysan ka soo jeedaa marka la qiimeeyo waa la hayaa intii codaysay somalilan dhowrkii goore doorasho dhacay baa la hayaa marka afrejka la eegayo boqolleyda caqli baa ilaahayna siiyey nin walbana waa xisaabtamaya cidda wax ka maqan yihiin gobollada wax ka maqan yihiin number 1 waa hargeysa oo intii ugu badneed ka maqan tahay 3 meeloodoo marka laga dhigo 2 meeloodoo dhow I mean 3 meelood marka laga dhigo meel iyo rubuc ayay hargeysa haystaa adaan sida kale u dhigo 40% kama yara codka hargeysa boqolkiiba 40 kama yara kuraasta cidda ka maqantay waa hargeysa numberka labaad cidda ka maqantay waa tog dheer haddii average la sameeyo gar naqsano gartaada waxaa la akhristaa intaanad geedka iman intaanad fargaaraha iman intaanad qaladka ku dhaqaaqin intaanad gardarrada dadka loo hor dhiman ayaa gartaada la akhristaa haddii gobol iyo lagu xisaabtamayo iyo qabiil iyo lagu xisaabtamayana gobollada ay ka maqan yihin waa la yaqaana ee kuraastoodii xildhibaanadu ka maqan yihiin marka la eego lagu beysgareeyo averageka loo eego 82 kursi marka lagu beysgareeyo dadkii codeeyey intii codeysay gobollada ka codeysay cidda wax ka maqan yihin waa la yaqaana hargeysa number 1 burca number 2 weli annagoo saami hadalhayna lama arka dira waddanku 2 muwaadin maaha waa 1 muwaadinuun waddanku tartan buu galayaa tartanka maxaad iga dheeraynaysa haddii lama arag nin idhaahda beritan baa adduunku galaa moo faarax baa qaaday orado badan oo aynu ognahay haddii kii number 9ka galay kii 10ka galay kii 6ka galay ay dhahdaan muxuu moo iga dheereeyey dee caqli maaha tala wadaana wataa hadeer ama daraf ya sheego ama garxaji sheego
ama warafka magaca doonta sheego almiidaan waasac baa la yidhi siyaasaddii waa xisbiyada siyaasaddii ninka beel kale ka daydaeyow walla inaad inta waxba kaga qaadayn guulla ku gaadhahayn la aqbali kari maayo ninka shalay xilka hayey ee afka kale ku hadlayey inuu maanta ummadda la soo horfadhiistay isagoon xishoonayn wax kale oo aan sakaara ka biirsan war gartaada inta arad bannaanka iman soo garnaqso war yaan la isugu soo gabannin waxyaabaha la soo maleegaya ee waddanka lagu soo dhex tuuraya ee cadowgu wato war waanu ognahay safaaradaha ka jira dalka iyo qunsuliyadaha la samaystay ee qabaa'ilka ka jira ee gobollada ka jira degmooyinka ka jira ragga shaqeeya waanu ognahay waxaanu leenahay dowladdu waxaa ka qabata ragga shaqeeya oo haddaba gasho oo telefoonadooda haddaba gasho oo raadadkooda haddaba gasho oo akoonnada lacagta ugu soo dhacayso haddaba gasho oo waa la helayaayo waa la yaqaanaayo haddaba gasho oo amniga waddanka iyay ku dowladdu ha ka hor tagto waxa soconaya inay sugta ma aha hawl baa socota hawl baa inagu socota hawshaa socota rag baa wada horaan ugu celcelinay waanu u sheegnay waanu u bayaaminay dhagahaanu ugu ridnay dowladda waxaanu leenahay eeganin siyaasad istirdoonkaaga gobollada jooga iyo degmooyinku ha shaqeeyo haddaba galo dadka la tuunsan yahay ee laynagu soo dhiibay bambooyinka iyo miinooyinka qabiilka lagu siraadayo ee laisku xidhayo ee laisku turturayo safaaradda ugu weyn hargeysa fadhidaa qunsuliyadda booramay fadhidaa waa la og yahay ha laga daba shaqeeyo ha lagu soo caddeeyo kiisaskooda waa la dabagalo waa la soo helayaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa almiidaan waasac siyaasaddii iyo kubaddii bannaankay taallaa ninkii wax isla hayow waa adiyo ragnimada iyo kartida waa salaamantiin markaanu weynahay ku waafajinayn waddada toosan waad ka weecan ogto wadii qaadmartaa wadkaa yaalla waxyeella tarow waraaga ma lihide waddanka ma ku kala wareegnaa ayay leedahay faadimo axmed يا سلام